mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad aragto koox dhalinyaro ah oo si wacan u dhegaysanaya hal qof. Qofka ay dhegaysanayana waxaad arkaysaa inay ixtiraam iyo qadarin iyo kalgacayl iyo maxabo fara badan ay u hayaan, oo si wacan oo qurux badan u dhegaysanayaan, hadalkiisuna uu si wacan qofkaas ugu socdo. Ama koox dhalinyaro ah ha noqoto ama koox fara badan oo majmac weyn oo markaa qofkaas wax ka soo jeedinaya ha noqoto, laakiin waxaa la dareemayaa qofkaas hadalkiisu inuu si qurux badan uga dhaadhacayo dadka markaa wax u soo jeedinayo. Yacni habkay u dhegaysanayaan ay tahay hab ay ogol yihiin isla markaana qalbiga ay u fureen si markaa hadalkiisa ay u dhegaystaan. waxaa laga yaabaa markaa qofka markaad ka fikirto as tiraahdo muxuu qofkaasi ku leeyahay iyaga ama muxuu u sheegayaa. waxaa laga yaabaa inaad ogaato ama aad aragtaba inuu leeyahay qofkaasi xirfado aad u fara badan oo ay ka mid tahay xirfadaha dadka qalbiyadooda lagu hanto iyo xirfadaha dadka yani afkaarta iyo hadallada iyo waxa loo soo jeedinaya lagu qancin karayo. waxaa laga yaabaa markaa inaad ka fikirto oo tiraahdo maxaan aniguna shakhsiyada noocaas oo kale aan u yeelan waayo oo dadka aan u qancin kari waayo, dadka qalbiyadooda aan u hanan kari waayo. waxaan isla wadaagi doonaa 6 mabda oo runtii aad u muhiima oo aynu ka soo dheeganay buugga uu qoray Dale Carnegie. buuggaasoo markaa loo yaqaano kayfa tu'athir cala alaakhariina wa tarsib alasdiqaa, yani sidee dadka kale u saameyn kartaa isla markaana aad u kasban kartaa saaxiibo aad u wanaagsan. buuggaasaan isla wadaagi doonaa iyo 6 mabda oo ku jira. soo dhawaada dhammaantiin, daawasho wanaagsan. السلام عليكم صاحبي هل سوري هذا بركلتين عبد الله منصوري واحد رجعنا دمانتي بيرد وعناني وناقد كويس سوغنتين هذا كان أركوع سبتك سودو وركمن نقاط أصحابتي هذا ظهر نقلة شتاني سودو ومركلين سان هورين كل سو وداغي waxaan maanta isla wadaagi doonaa 6 mabda oo inaga saacidi doona isla markaana aad looga caawin doona in dadka qalbiyadooda aynu hanano isla markaana dad fara badan aynu kasbano ama saaxiibo badan aynu ku kasbano. 6 mabda waxaan ka soo qaadanaysaa horey soo sheegay buugga loo yaqaano kayfa tu'athir cala al-aakharin wa tarsib al-asdiqaa ee uu qoray markaa Dale Carnegie. buuggaas waa buug runtii aad u qiimo badan waana buugaagta ugu fiican ee laga qoray markaa fanu tacaamul maca naas ama habka dadka loola tacaamulo. marka wuxuu soo qaadanayaa mabaadi aad u fara badan oo kala wada duwan oo markaa qodob walba uu si gaar ah u sii faahfaahinayo, laakiin 6 mabda ee waaweyn bay ka soo qaadan doonaa si aynu si fiican uga fahanno ama aynu wax badan uga ogaano sidee dadka markaa aynu ku hanan karayna. mabda koowaad ee soo qaadano isla markaana qorayuna la wadaagay waxa weeyaan waxa aad daneen fara badan siisaa dadka kale in ka badan inta aad oo siinaysa naftaada. markastoo dadka kale aynu daneen fara badan siino oo ihtimaam fara badan aynu siino waxa ay keenaysaa in dadka kale qalbiyadooda aynu hanano. waxaa jirta qaacido guud oo tiraahdo qofku yani isaga ayaa naftiisa marka koobaad daneeya oo tijaabo ay samaysay shirkad ku taala New York isla markaana yani telefoonada ka shaqeysa ayaa waxay tiri kelmadda ugu badan ee la isticmaalo marka la wada xiriiraya la isticmaalo waxa weeyaan waa kelmadda ana ama kelmadda marka qofku isaga iska hadlay aniga weeyaan. kelmaddaas waxay keentay in dadku badanaa qofku shakhsiyadiisa uu ka hadlo oo isagu iska turjumo oo mar walba isaga markaa iska hadlo, laakiin markastoo qofku isaga cid ka baxsan uu ka sheekeeyo isla markaana uu ka hadlo isla markaana dareen fara badan uu siiyo oo markastoo dadka yani xiriir fiican uu ka dhaxaynayo ilaaqa wanaagsan marka ay ka dhaxaynayso. dhinaca kale haddii aanu ka eegno qofku inuu isagu shakhsiyadiisa uu aad ugu daneeyo isla markaana isagu ihtimaam fara badan siiyo waxaa tusaale kugu filan tusaalaha hadda sawir aad gasho sawirkaana dad fara badan asxaab aad la gasho markasta adiga ayaa priority siinaya oo markastoo adigu aad qurux badan tahay iyagu haba doonaha fool xumaadaan qaabka sawirka u dareene sawirka waxa laga yaabaa inay soo post garayso oo meesha keento. waxaa kaloo jirta haddii iyagu ay wada qurux badan yihiin laakiin sawirka adigu aad yar fool xunta ama dhinaca qurux badan aana kaga jiro ama si fiican aan lagu arkeen ma soo post garayso isla markaana meel keenaysa. marka taas wax ku siraysaa in inagu daneen fara badan aynu isku hayno isla markaana qofku shakhsiyadiisa mar walba ihtimaamka aad u fara badan uu siiyo isla markaana uu ku dadaalo. laakiin markastoo daneen fara badan aynu siino isla markaana ihtimaamaad fara badan aynu siino dadka kale waa markastoo markaa shakhsiyadina ay noqonayso shakhsiyad qiimo leh xiriir fiican markaa dadka kale u kala dhaxaynayo. mabda labaad ee soo qaadano isla markaana qorayuna la wadaagay waxa weeyaan waa dhoola cadeyntu. wuxuu leeyahay qoraagu dhoola cadeyntu waa shay aad u muhiima waana yani waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofku markaa hadduu doonayo inuu cid kale xiriir fiican la sameeyo ama dad kale uu soo jiido in looga baahayo markaa inuu la imaado. waxaa jirta in markaa qoraagu soo qaadanayo oo tijaabo sameeyey markii uu ogaaday dhoola cadeyntu faa'iidada leedahay waxaana uu tijaabo ku sameeyey markaa gurigiisa oo markaa xaaskiisa dabcan iyo markaa shirkadii uu ka shaqeynayay. wuxuu yiri waxaa noqday qofka shirkadda ugu asxaabta wanaagsan leh isla markaana xiriir aad u qurux badan uu naga dhaxeeyo laana markastoo subax kastoo aan imaado qof kasta waxaan ku qaabilaa ibtisaamo iyo dhoola cadeyn qurux badan baan ku qaabilaa iyo salaan aad u wanaagsan oo diiran markaa xiriir aad u qurux badan ayaa qof kasta naga dhaxeeyay. waxaan arkaa beri ka maalin iyo qofkii isaguna sidoo kale isoo dhoola cadeynaya oo si wacan isku marxabayno islaamaya xiriir fiican naga dhaxaynayo. wuxuu yiri xaaskayga markasta oo soo galo yani ereyo qurux badan iyo markaa dhoola cadeyn qurux badan markaa isugu daray waxa markaa dhacday in xiriirka iyo ihtimaamkii dhexdeeda yaalay oo markaa aad u siyaaday markaa galgacayl iyo maxabo aad u fara badan ay timaaday. tusaalahan haddii aad kulantaan qof cusub oo markaas ku cusubtiin oo isla markaana aad ku qaabisho dhoola cadeyn iyo soo dhaweyn aad u diiran aad ku qaabisho waxaa laga yaabaa qofkaas inuu wuxuu hayaba kula wadaago si qurux badan oo wanaagsanna markaas ku barataan waa awoodda ay leedahay markaa dhoola cadeyntu. saa daraadeed baa xikmad waxay odhanaysay يعني ابتسامتي تساوي 1000 مليون دولار أو مليون دولار. يعني ابتسامة iyo dhoola cadeynteedu waxay ii taraysaa lacag aad qadarkeedu inta leeyahay
marka yani xataa waxa xidhiidh fiican laga dhaxaysiyaa ganacsiga qofku samaysanayo iyo markaa ibtisaamada iyo markaa dhoolla cadaynta sidaa daraadeed waxay xikmad siiniyiin ay lahaayeen yani qofku haddii aanu dhoolla cadaynta yani samayn karayn ama uu ku raaxaysan karin markuu dhoolla cadaynta uu samaynayo waa inaanu meelba furan yani maxal iyo goob ganacsi waa inaanu furan لأن dadkan yani wax ka iibsanaya wax ku soo jiidan karaya oo kaliya waa habka wanaagsan uu la tacaamulayo oo marka waxyaabaha ugu wanaagsan ay kamid tahay marka dhoolla cadayn iyo soo dhaweyn qurux badan qofku marka ay siiyo imisa meelood bad aragtay war meesha ah inoo geeyna qof waji cabuusa iyo qof xidhan iyo qof dabeecad xun jooga meeshaas yani yeena tagin imisa jeer bad aragtay dadku asxaabtina la socda meelo kale la tagay bisabab qofka jooga ee dhoolla cadaynta fara fiican leh isla markaana soo dhaweynta quruxda badan leh marka qayb weyn ayay ka qaadanaysaa xiriirka aynu bulshada iyo dadka kale la sameeyno inaan dhoolla cadayn aad u wanaagsan aynu la imanno mabda saddexaad ee qoraalku soo qaadanaya waxa weeyaan dadka kale waxaad ugu yeedhaan magacyadooda waxay dhahdaan identity ugu horeeya ee qofku leeyahay isla markaana ugu muhiimsan waxa weeyaan waa magaciisa qofka markastoo magaciisa ugu yeedho waa markastoo uu dareemayo in danayn fara badan iyo qadarin fara badan loo hayo isla markaana qofkaas uu kuu soo istaagayo xiriir fiicanna markaa uu ka dhaxaynayo marka waa muhiim in dadka markaa magacyadooda loogu yeedho حتى قفك هدول ليه هاي مركان نانيس وحكوا وناس إنه قفك مركان مريعيسى ويارو تصالح هذا بوست هاي أو شغالة فربنا مركان بوست مثلا وأنا تجرنا سقف والبمريعيسى أو مركان سوق روح بدنا أو وناس أو احترام له المريعيسى قفك وياري كرتو وحبضنا عند عضة إن ضدك مريعيود أي لونه أو مركا أي وياري كروينه أو مركا قفك إنسبرانو مريعيسى أنستو لونه نانيس تلي أنست قبصنه لكن وح مهمة أو كذا بعد وناس إنه قفك مركا أو برتو ضدك كلمريعيود ده تعامل مركا أو ويارو مركز تو وحكة البرية أو مركز تو قفك وحكة الرابط مبدأ أفراد القراوي لو داري وحويان waxaan noqotaa dhageysta wanaagsan dadka kale waxaad ku dhiirigelinaysaa inay hadlaan waxa caado inoo ah in dadku ay jecel yihiin inay hadlaan afkaartooda cabiraan dadka kalena marka ay ka dhex muuqdaan oo qofka marka hadlaya ee yani topic soo jeedinaya ee dadka kale yani wax ka soo dhex jeedinaya inuu noqdo qofku si dadka kale marka uga dhex boodo laakiin waxa aad uga wanaagsan in qofku marka aamusnidiisu ay ka badato inta qofku hadlayo faa'iido badan bay leedahay tusaale ahaan waxaad noqonaysaa qof dadkii kale ka soocan isla markaana ay wada suriyaan inay dhageystaan isaga si xikmadaysan marka hadhow u hadli doono waxaa kaloo la mid ah in yani afkaarta dadkaas ay ku hadleen iyo waxyaabaha ay soo jeedeen inta si fiican u dhugato inaad hadhow ka ficilin karto oo markaa ficilin aad u wanaagsan oo wixii oo dhan koobaysa inaad markaa samayn karayso marka yani waxay noqonaysaa in dadka kale aad chance siiso oo markaa aad u ogolaato inay iyagu hadlaan ka faalloodaan arrimahooda afkaartooda ay ka hadlaan isla markaana asi wacan oo qurux badan aad u dhageysato waxay markaa dareemayaan inaad ixtiraam fara badan aad u hayso mar waad dhageysatay marna waxaad u ogolaatay inay hadlaan hadhowna waxaad imanaysaa markaa in adigana si fiican ugu dhageysto ixtiraam iyo qadarin fara badanna markaa lagu hayo waxaad kaloo samaysaa dadka kale markaa hadlaya ha ka dhex gelin oo markaa afkaartooda ha ku dhex joojin ilaa markaa qofkaasi uu ka dhamaysto hadalkiisana uu markaa ka faaruqo ha ka dhex gelin buu leeyahay taasi waxay keenaysaa dadka inay xiriir fiican ka dhaxeeyaan isla markaana ay qadariyaan isla markaana ay ixtiraamaan wada sheekaysiga marka ay dhex mari karayaan mabda shanaad ee qoraalka la wadaagay waxa weeyaan waxaad aad uga faalootaa isla markaana isku daydaa inaad ka hadasho qofka ku ag fadhiya ama aad la hadlayso waxyaabaha uu daneynayo ama waxyaabaha uu jecel yahay waxaa jirta qiso uu leeyahay William Lyon Philip waxaana uu qoray maqaal loo yaqaan Human Nature asalna waxa uu ahaa ustaad cilmiga adabka dhiga isla markaana maqaalaad ka qoray maqaalka uu qoray waxa ka faaloonaya isagii edidii ayaa maalmaha kamid ah tuulo qabtay waqtigaana fasax buu ku jiray marka uu tiray magaaladaas ama tuuladaas uu tiray waxa uu aad u dareemayay doomaha iyo mowduucaas marka aad u xiisanayay inuu marka ka hadlo isla markaana ka faaloodo yani xogteedana uu dareemayay ninba marka soo booqdo u yimaaday ninkii waxa sheekadii oo dhan ka dhigay inuu marka doomihii uu ka hadlo ka faaloodo waxyaabo fara badan marka uu ka sheego ninkii markii uu tiray edidii ku yiri ninkan waxaan u maleynayaa inuu yahay qof mutakhasis ku ah ama aad u garanaya cilmiga marka ama aqoonta doomaha waxay ku tireen ninkan waa nin lawyer ah magaalo kale la ka shaqeeyo cilmigan iyo hawshan ka sheekeynaysan waxa uu shaqo ku leeyahay ma jirto taasi wax keentay in isaga iyo qofkii kale xiriir aad wanaagsan uu dhex maray isla markaana ay si wacan oo wanaagsan ay uga faalloodeen mowduucii marka uu jeclaa marka waa muhiim inaad qofka kale afkaartiisa iyo waxyaabahu aad u daneynaya waqtigaas aad ugala faallooto isla markaana waqti aad siiso mowduuciisa lagu niqaasho marka qofku wuxuu dareemayaa in isaga aad daneynayso qadarin fara badan iyo ixtiraam fara badan aad u hayso markastana uu kula imanayo mawaadiicda uu aad u daneynayo si aad ugala hadasho isla markaana aad ugala faallooto mabda lixaad soo qaadana ee u dambeeya waxa weeyaan qoraalku marka buugiisa inuu la wadaagayo waxa aad ugu dadaashaa in dadka kale aad dareensiiso inay muhiim yihiin adigoo marka qaab run ah u dareensinaya maxaan ka wadnaa qaab run ah u dareensinaya waa inaad qofka qaab mujaamala ah oo marka kaliya aad daneyn fiican aad ka leedahay oo inta waqtiga yar hawsha aad ku wadato inaad qofka muhiimad uu inuu leeyahay aad dareensiisa inaanay ka ahayn laakiin waa inaad qaab run ah aad u dareensiisa waxyaabaha ugu muhiimsan ee qoraalku leeyahay inaad ku dadaasho waxa kamid ah in erayo qurux badan oo wanaagsan aad qofka ku tiraado isla markaana aad marka aad u soo jeediso markastoo shaqo qofku kugu qabto markastoo qofka xiriir fiican dhex maraan waa inaad erayo qurux badan aad ku tiraado
tusaale ahaan waxa kamid ah shaqadii aad isku soo dhasheen qofka maalintaas wacan buu soo labistay ama yani munaasabad gaar ah buu leeyahay qofka waa inaad xaalkiisa la socon karaysaa isla markaana ereyo qurux badan aad ku oran karaysaa markasoo ereyo qurux badan qofka ku tiraadana oo markasoo ijaabiyadiisa iyo positivekiisa qofka aad u siyaadinayso isla markaana qofkaasi uu helayo markaa farxad uu cidda kale aanu ka helin taasoo markaa keenaysa in xiriir fiican adiga iyo qofka kale oo idin dhex maraan marka kaftankeeda wanaagsan ee qofka marka koowaad aad kulantaan welina qaab yani wanaagsan oo positive aad ula kaftamayso waxay keenaysaa in xiriir qurux badan oo wanaagsan oo idin dhex maro waxyaabo uu aad ugu sii faaloonaya waxa kamid ah in dadka wax inoo qabta shaqada inoo qabto tusaale ahaan oo kale qof wax ku keenay delivery oo kale ama waxyaabaha la midka oo kale sida qisooyinka qaar uu buuga ku soo warinayo waa in qofka aad mahad celin fiican ama yani hadal aad u qurux badan oo wanaagsan aad ku tiraahdaa waxa laga yaabaa qofkaas ereyga quruxda badan aad ku tiraahdo inuu saameyn weyn ay noloshiisa ku yeelato maalintaas oo dhan ay farxad gaar ah ay u ahaato bisabab ereyga kaliya lagu yiraahday marka waa muhiim in ereyada noocaas kale ay ku dadaalno si marka dadka kale aan uga farxino waxaan aaminsanahay lixda qodob in wax badan inaga saacidi doonaan isla markaana wax badan ka bedeli doonaan xiriiradii aynu dadka la sameeynay isla markaana inaga dhigi doonaan dad yani xiriir fiican la leh dadka kale yani si wacan u hanta soo jiidasho fiican leh waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaan ka wada faa'iideysan doono qodobadan isla markaana qayb kamid ah nolosheena ka dhigi doono inta ku kulmana kulan xiga waxaan kaga tagayaa nabadgelyo salaamullah